وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أيام مال ما كمده وحاول الصحابة ديسا وبندقي شن الرمض مهمة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يا إيقاطة شن الرمض أو كو عمل فلاح كو رقمة أما براء أو قارسية عد كو رقنتا. أبو هريرة حديث كورنا يا نبي كورنا صلى الله عليه وسلم وحيري وحان إلي أنيق رسولك إلهي أنا كا قادني أو كو عمل فلي أو كو رقمي. وحيري مركز النبي صلى الله عليه وسلم قعنت إقبتي أسوق قعنت إهيا بوشنتي الرموت قعنت إذا يقول تريي شن الرموت النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلام على إسراع سن شن تاسي النبي شيء صلوات ربي وسلام عليه مد والباء واحد دبيا له نتيجة ذا واحد دبيا له وحي كتصيصه وعدي سميساي أي كرد حليسو يكفى إذا سنس مدكوا بعد رسول كحول صلوات ربي وسلام عليه. أبو هريرة أيها هذا الكؤر عيا السجايري أنا قادنا يوكو عمل فليا ومدنا وكل شرتاي ولوتش إذا رمانت هذا الكوا لا وضع والنبي يقول صلوات ربي والسلام عليه اتقي المحارم تكن أعبد الناس. قضبك كوبادي وحوي وحي إلهي حرامي أو أوديدي أو كاربي إسك إلالي يكفقو هذا سيدا يشو waxaad noqonaysaa adoomada Ilaahay midka ugu cibaado fiican uguna cibaado badan. adoonnimadii lagu abuuray baad si dhaba u xaqiijisay. maxay yeelay diinteenu laba tiir baa asaas u ah. tiirka koobaadi waa waxyaabo layna farayo sameeyo layna leeyahay. tiirka labaadna waa waxyaalo laynaga reebayo iska ilaaliyo layna leeyahay. wixii rabbi كاربي أو محارم لغو مغعابو أو للربا إناد إسكا إلاليسو حالكا هداد إسكا دورتو حاد كمي تهي أدومدا ميدكا أغو في عمبات. وانا ماشا انت بدن أدومدا كو امتحانيه لأن الشهوة دا إيدوني دا نفتينا إيه الشيطانو إنا لحيرينا انتبا وحي دونيان وحي إلهي إنا قرربا إنا نكو دعنو. أدونكي مركا إسحاكميو هالكا نفتيسا كعلياي وحي كتصيسا إنو أدوني مدي لو أبوري عبودية دي حقيقية. سيدا استرادت بالنبي قالوا صلوات ربي والسلام عليه حديث كالوحو كت المامية دين تينا قيبه هذا كالقدسان وحا أقو خير بدن أقو وناكسن إنو الروح حلال ميرشا سميو. حلال ميرشا دو وحويا وحي حاران ودنسيقا فوقاتو wixii xaraan ka agdhow oo dhanna inaad ka fogaato diinta taasa ugu khayr badan ba rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. maxaarimta marka ka fogow adoonnimadii lagu abuuray baad xaqiijin oo waad ugu fiicnaanaysaa adoomada ka ugu sitaad noqonaysaa. qodobka labaad ee nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi khaslada labaad wixii ilaahay qayb ku sii raali ku noqo waxaad noqonaysaa hadda sidaa yeesho adoomada midka ugu taajirsan ee ugu qanisan baan noqonaysaa. Allah tabaaraka wa ta'ala isaga adoomadiisa wax u qaybiyay xikmad bay ku salaysan tahay in badan oo kamida inaga qarsoon laakiin rabbi tabaaraka wa ta'ala wixii adoomada uu siiyay uu u qaybiyay midna waa ku yareeyay midna waa ku siyaadiyay mid waa u siyaadiyay midna waa u yareeyay wixii ilaahay ku siiyay ha ku yarada ha ku badnaade raali ku noqo ku qanac. xoolaha ilaahay ku siiyay intay daanna hadhanaadeen raali ku noqo. caruurtu ku siiyay intay dooni hadhanaadeen ku qanac. hadduusan ku siinin oo madhaleys ka dhigay alxamdulillah ku qanac waa qayb rabbi tabaaraka wa ta'ala.
wixii ilaahay uu ku siiyo aqli ah ku qanac cilmi wuxuu ka siiyay ku qanac wixii ilaahay ku siiyo qayb kuugu soo hagaajiyay raali ku noqo ku qanac hadda sida yeesho waxaad noqonaysaa adoomada midka ugu qaniisan ee ugu taajirsan لأن taajirnimadu waa qanaacada qalbiga iyo deganaanshaha iyo qalbigaagu inuu iimaan qabo nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi Abu Dar oo saxaabadiisa kamiduu la hadlay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Abu Darow ma waxay kula tahood u malaysay taajirnimadu inay tahay xoolo badnimiyaad u malaysay taajirnimada dhabtii wax weeyaan qalbigaagu inuu taajir yahay qalbigaagu inuu qani yahay oo qanacsan yahay taajirnimada dhabtii waa taa faqriga dhabta ana ma aha inaadan xoolo haysanin ood gacan maran tahay faqrigu ma aha laakiin faqriga dhabta annabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa faqriga iyo baahida qalbiga waa ninkii qalbigiisa ilaahay qaninimo uu galiyay qanacsanaan wixii ilaahay u qayb ku siiyayna ku qanacsani kaasi wixii adduunya waxay kala maqan tahay ma jirta buu rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxii qanaacada qalbiga laga qaadana wax kasto adduunka la siiyo sidoo doonay ha u badnaade waxba u tari maayo buu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa uu dhibaya naftiisa shuxigeedii iyo bakhaylnimadeeda sidaas daraadeed wixii ilaahay qayb ku siiyay raali ku noqo waxaad noqonaysaa adoomada midka ugu taajirsan naftaada degaysa noloshaada xasilaysa waad qaboobaysaa intaan aakhiriya abaalgudkeeda la gaadhin ba adduunkaaga wuxuu noqonayaa adduun raaxo leh oo xasiloonina oo degan baad noqonaysaa qodobka saddexaad ee nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ee uu leeyahay iga qaata oo ku amal fala wuxuu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dariskaaga ihsaan iyo wanaag u samee hadda sida yeesho mu'min baa tahay waxay ku tusaysaa inaad iimaan leedahay khayr qabto dariskaaga wanaag u samee dibkaaga ka xili wixii wanaageed la dheer tahayna ka qayb gali dariskaaga ka warhay dariskaaga ihsaan u samee لأن الروح iimaankiisu wuxuu ku gowracan yahay kolba qaabka uu dariskiisa ula dhaqmo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiid kala wuxuu ku leeyahay saddex goor buu nabigu rabbigii ku dhaartay tabaaraka wa taala uu leeyahay wallah ilaahi baan ku dhaartay ilaahi baan ku dhaartay muusa rumaynin yaa waay rasuul ilaahayow ka saddex goor aad ku dhaaratay inuu san rumaynin oo iimaan lahayn waa mid hoogay oo khasaaray ayuu yahay nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa idda dariskiisu uusan aamin ka ahayn sharkiisa dariskaagu hadduu dhibkaaga ka badbaadi waayo iimaanka aad sheeganaysaa dib noqosho u baahan yahay su'aal baa saar calaama su'aal baa saaran iimaankaaga maxay nabi maxamed baa saddex ku dhaartay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu ruuxaasi iimaan lahayn mar rumayni buu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa arin marka u baahan inaynu aad uga fiirsano nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa loo sheegay maalin maalmaha kamida waxa looga sheekeeyay haweeney salaad badan habeenkii oo dhan salaad bay u taaganta maalintiina waa soomanta gacanteeduna sadaqada waa u furanta way sadaqa badanta laakiin mushkiladeedu waxa weeyaan dariskay carabka ku dhibtaa way carab dheer tahay dariskeedu kama badbaadaan nabigu wuxuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasi naartay ku jirtaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam aaway salaadii badnayd aaway soonkii badnaa aaway sadaqadii badnayd naartay gashay buu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mid kala loo sheegay nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa lagu yiri hebla waajibaadkeeda ay gudataa laakiin ma sadaqa badna salaad badanna laguma oga soom badanna male waajibaadka way ka adag tahay laakiin dariskay u roon tahay nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasi jannaday gashay buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi u fiirso soonkii badna salaadii badna cibaadadii badnayd marka dariskaaga ku xad gudubto naar waa ka badbaadin waay dariskaagood ihsaan u samaysay ama sharkaaga aad ka reebatayna salaad yaridii iyo soon yaridii iyo sadaqa yaridii
sabab wuxuu u noqday inuu kabo oo ilaahay jannadiisa aad ku gasho tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed dariskaaga ixsaan u samee, waxaad noqonaysaa ruux mu'minaad noqonaysaa. iimaankay daliil u tahay. qodobka afraad nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, dadka waxaad la jeclaataa axibba linnaasi maa tuxibbu linafsika takun musliman. dadka iyo khalqiga la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay, muslim baad noqonaysaa. waxay daliil u tahay inaad muslim tahay, islaamnimadaaduna ay dhab tahay. khalqiga ilaahay waxaad naftaada la jeceltoo wanaaga la jeclo. maxaad naftaada la jeceshahay? waxaad la jeceshahay cadaalad, waxaad la jeceshahay ammaan, waxaad la jeceshahay xoolo, waxaad la jeceshahay cilmi, waxaad la jeceshahay cibaado, waxaad la jeceshahay caruur wanaagsan, waxaad la jeceshahay aakhira iyo janno ilaahay wajigiisa inaad daawato, waxaad la jeceshahay wax kastood naftaada la jecesho khayr ah dadkana la jecel. macnaha maxaa laga wadaa? miisaanka naftaadu saaran tahay eed wax ugu beegayso laftiisa dadkana ugu beeg. laba miisaan oo midna khaaiya oo dadka kula dhaqanto, midna naftaadii adiga xaaladahaaga aad ku miisaamato ha samaynin. waylu lilmutaffifiin way. laba miisaan, midna muxuu ahay dulmi ku socdo oo dadka aad kula mucaamaloto, midna aad wax ku beegatood adigu waxaaga ku ilaashato maya. laakiin waxaa lagu leeyahay dadka iyo adigu naftaada ka soo qaad sida dadkoo kale. wixii khayreed naftaada la rabtana dadka la rab. nabigu markuu ka warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aakhiru zamaanka iyo fitnada dhici doontee isdaba joogta ee midba midda dambe ka culus tahay, wuxuu nabigu badbaado ka dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii jecel inuu janno galo naarna ka badbaado, iimaan geeridu ha u timaado asagoo ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan. waa qodobka labaadi waxa weeyaan dadka ha ula yimaado wuxuu jecel yahay inay dadku isaga ula yimaadaan. waxaad rabto in lagugula dhaqmo adiga dadka kula dhaqan, waxaadan rabin in lagugula dhaqmana dadka ka ilaali. waxa aad naftaada la jeceshahayna dadka la jeclow. saas daraaddeed baa nabigeenu xadiid kale wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, midkiin ma uusan rumaynin ilaa uu dadka la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay. xasad maya, xasad maya, anaaniyana maya, aniga uun wax walba aniga uun maya, lama ogola. adiga iyo dadka way. aniga uun ma ahe adiga iyo khalqiga way. waxaad naftaada la rabto dadkana la rabo la jeclow. sidaasina waa qodobka afraad wey. qodobka shanaad nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, yaree oo ha badsanin qosolka. maxaa yeelay qosolka faraha badani qalbigu daa. maxaa yeelay qosolka faraha badani wuxuu tilmaamayaa ruuxaasi in qalbigiisa wax badani ka maqan yahay oo qafle iyo halmaan iyo moogaan uu ku sugan yahay. ruuxu hadduu qalbigiisa uu ka buuxo geerida iyo cabsideeda, qabriga iyo xaaladihiisa, qiyaamaha iyo ahwaasheeda, rabbigaabaad hor istaagi doontaa, siraadkaad mari doontaa, janniya naar baa jirta, khaatumadaadu maxay noqon doontaa. qalbigaaga markay macaanidaasi ka buuxdo, beddelka qosolka faraha badan waxaa beddelaya in badan inaad walwasho ood murugto. saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, low taclamuuna maa aclam, haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay. jannadiiyo naartii buu ka sheekeeyey. waxa aan ogahayeen ka warhaya haddaad ogaan lahaydeen oo qalbigiinna ay ku jiri lahaayeen, in badanna waad ooyi lahaydeen, wax yarna waad qosli lahaydeen buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. laakiin waxaan ogahay baydaan ogeyn, iska qoslaysaan waa. iska qoslaysaan waa. qosolkaaga faraha badan iyo faraxa waxaa loo diidan yahay marar fara badan wuxuu ku jiidayaa waxaan loo baahnayn. marka qosolkaaga yaree, qosolka badani qalbiguu dilaa oo macaanida khayrka ayuu ka dilaa, ayuu nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. in badan cabsi iyo murug iyo walbahaar iyo mustaqbalkaagood ka fikirto ayaa la doonayaa noloshaadiiyo inay qalbigaaga buuxiyaan, wax badanna ay ku saameeyaan. taasaa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ka digayaa. macnaheedu maaha asalka qosolka lama diidana
ibtisaamada lama diidana qosolka asalkiisa maaha waxa laga hadlayo laakiin waa badsashadiisa inuu ruuxu badsado taasaa la diidan yahayo macnaha khatarta keeni karayse nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam alayhi khisaasha shanta arrimood oo macaani waaweyn ku fadhida ayuu nabigeenu soo bandhigay yaa iga qaadanaya buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wasalaam alayhi waxa laga maarmaana dhamaanteen inaan farta u taagno sidii Abu Hurayra farta ugu taago nidhaahno qadanay rasuul ilaahay laana danteena way maslaxadeena way aakhiradeenna way adduunkeena way taasu nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam alayhi ayuu qodobadaasi kaga hadlay أي نسوينا نسأل قادنا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك